طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. waxaan gelaynaa now example-ka 14aad xisaabta form 4 cutubka koowaad waxaynana leedahay right qora sin 3x ayaa in terms of waxa u qoraysiin sin x ahaan qora. dabcan hadda meesha waxaa ku haysanaa waa sin, laakiin sinka aan haysanaa angalkiisu waa 3x. waxaa la rabaa in loo qoro sin x ahaan, taasoo macnaheedu tahay waxaa laga rabaa functionka inuu noqdo sin, angalkan waxaa laga rabaa inuu noqdo x. hadda functionkii waa haynaa waa sin, laakiin angalka ayaanan x ahayn oo 3x weeyaan. haddaan rabno su-aasha markaynan ka shaqeyno sidee yeelinaa? marka koowaad waxaana la siiyey waa sin 3x, waxaa haysana waa sin 3x. sin 3x marka waxaa la rabaa in loo qoro in terms of sin x. marka koowaad waxaan dhahaynaa sin waa functionkiina la siiyey sidiisa inoo ahaado, laakiin 3x waxaa loo qori karaa x oo lagu daray 2x. maxaa la dhahaa x hadda 2x aan ku darno waxaa hubantay inay 3x soo baxayso. okay, haddaba sin x plus 2x ayadana waxaa lagu sameyn karaa expand ama fidin ayaa lagu sameyn karaa maadaama ay tahay sum oo sin markii la fidinayana waxaa la yiraahdaa tusaale hore waxaan usoo marnay sin a plus b inay lamid ahayd sin a cos b plus cos a sin b. that means maanta marka tan sidii oo kale weeye, a booskeeda maanta waxaa joogto x, b booskeeda waxaa joogto x. mar walba oo sum oo sin la fidinayana qaabka loo fidiyaa waxay noqotaa mar walba sin cos cos sin. haddaba haddaan fidina kan muxuu noqon doonaa sin ayaan oranayaa marka koowaad, angalka koowaad aan siinaa oo x, sin x ayuu noqonayaa. kadib waxaan leeyahay cos, angalka labaad ayaan siinayaa oo ah 2x. meeshaan balaasaa taalo, halkan waxay noqonaysaa ayadana plus. kadib waxaan leeyahay cos, angalka koowaad ayaan siinayaa. kadib waxaan oranayaa haddana sin, angalka labaad ayaan siinayaa. that means marka sin x plus 2x markii la furfuro waxay noqonaysaa sin x cos 2x plus cos x sin 2x, oo qaabkay furfurmaysa waa sin cos cos sin. okay, now hadda waxaan leenahay marka kan dantii aan kale waa ka gaarnay asalkiisii ku celiyey. haddaba markaa sin 3x haddaba waxaan oranaynaa waxay la mid tahay halkan waxaa yaalo sin x. sin x wixii nagala rabo waaye ayadu sideeda ha inoo ahaato. waxaan markayna bedelanaynaa cos 2x. waxaa hubantiya sin x waxay ku dhacsan tahay cos 2x. cos 2x marka saddex siyaabaa loo furfuri jiray. mar waxaa dhihi jiray cos squarean minus sin squarean, marna 1 minus 2 sin squarean noqonaysay, marna waxay noqonaysay 2 cos squarean minus 1. dabcan annaga waxaan rabnaa maanta waa inay wax dhan ay noqdaan sin. sidaa la jeed cos 2x waxaan u furfuraynaa sin ahaan oo keliya aan furfuraynaa. that means marka cos 2x waxay la mid tahay oranaynaa hal laga jaray 2 sin laba jibaaran x ayaan oranaynaa. okay, dabcan meesha waxaa yaalo balaaskiisaan soo celinaynaa. cos x kaana asagana sidiisa ayaan soo celinaynaa. waxaan furanaynaa bracket si aan u furfurno sin 2x. sin 2x ayadana waxaa loo furfuraa hal siyaab oo keliya oo waxay noqonaysaa 2 sin x ay noqonaysaa cos x. okay, now marka hadda waxaan markaan furfurnay double angle-kii. marka koowaad sum expand ayaan sameynay, haddana double angle-ka wixii ahaa double angle ayaan furnay. waaya hadda waxaan leenahay marka sin x gudahaan ayaan ku furaynaa. haddaan sin x gudahaan ku furno 1 kan wuu ku dhacayaa, 2 sin squarean-na wuu ku dhacayaa. sin x haddaan 1 ku dhufto dabcan waxaa soo baxayso sin x ayaa soo laabanayso. mar kale isla sin x tan haddii aan ku dhufano 2 sin squarean oo minus haddaan ku dhufano waxaa soo baxayso minus 2 sin cubic x ayaa soo baxayso. maxaa yeelay kan square wataa, kan jibaar 1 oo qarsoon, jibaarada isku darsamaya cubic ay noqonaya. waayo qoladan ayagana waxaa dhahanaa cos x tan ayaa waxaa lagu garaacaya gudahan. cos x marka gudahan ku garaacno waxa meeshan ku jiro 2 sin cos hal xabis ku yihiin.
haddii cos x lagu dhufto marka cos x coskan ay ku dhacaysaa oo waxaa soo bixi doonta oo keliya 2 sin x ayadoo sideedii ahaanay cos iyo cos hadday isku dhacaanna waxay noqonaysaa cos square garaysan x ayay noqonaysaa. Okay, now hadda waxaan leenaha warkaan asagana waxuu sii dhigmaa sin x sideeda hanoo ahaato waa wixii aan u baahnayn waaye minus 2 sin cubic x ayadana waan u baahannahay sideeda hanoo ahaato plus 2 sin x ayadana sideeda hanoo ahaato. Now maanta waxaan bedelinaynaa cos square x ayaan bedelinaynaa. Cos square x maxay u dhigmataa marka? Dabcan waxaa Pythagorean-ka ku soo marnay sin oo la isku wargareeyay oo lagu daray cos oo la isku wargareeyay waxay la mid tahay hal. Pythagorean dhantii qaacida kamid weeyaan. taasoo macnaheedu tahay marka haddii cos square loo baahdo sin square-na la wareejinaya. dabcan haddii la wareejiyana sin square minus ay noqonaya oo waxaa lahaa cos square waxay u dhigmataa hal oo laga jaray sin square ayay u dhigmataa ayaan oranaynaa oo x. Okay, now hadda waxaan leenahay marka waxaa noo dhiman oo keliya operationka inta dhiman inaan dhamaystirno. meeshan waxaa taala sin x sideeda ayay noo ahaanaysaa minus 2 sin cubic x ayadana sideeda ay noo ahaato 2 sin x tan ayaan gudaha ku furaynaa. 2 sin x tan haddaan ku dhufano waxaa soo baxayso plus 2 sin x ayaa soo baxayso isla 2 sin x tii haddaan minus sin square garaysan ku dhufano waxay noqonaysaa minus 2 sin cubic x ay noqonaysaa lianna kana waa square kana waa jibeerkiisa la qorson cubic ay noqonaysaa. kan horgal laba wataa horgalahaas labada ah minus ka markuu ku dhaco minus ayuu noqonayaa. Okay, now hadda waxaan fiirinaynaa haddii jiraan wax isku mid ah oo ama la isu dari karo ama kala jarma haddii jiraan. dabcan meeshan waxaa taala sin x digrigeedu waa hal halkan waxaa taala 2 sin x oo iyadana digrigeedu yahay hal. maadaama labadan sin isla yihiin waa la isku darayaa hal sin x laba sin x ku darayaa la oranayaa waxaana soo baxayso 3 sin x ayaa soo baxayso. sidoo kale meeshan waxaa taalo sin cubic iyo sin cubic. dabcan waa isku degree kana waa cube kana waa cube horgalayaashooda kana waa minus 2 kana waa minus 2 calaamadahooda waa isku mid maadaama ay minus wada yihiin way isku darsamayaan laba ku darayaa la oranayaa afar ayay noqonaysaa laakiin afarkaas minuskiisii ayuunbuu sii joogi doonaa waxaan oranaynaa minus 4 sin cubic x na xaba ayaan kasoo qaadanay. now marka haddaba waxaan oranaynaa sin 3x waxay haddaba u dhigmataa in terms of sin x markii loo qoro 3 sin x minus 4 sin cubic x. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى